عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتي بداود يالكسو دواد وركني مان لها وادكلا سوعن ترتان ملتيميديا وركنا وحيد لسوعتين إساني واهن معضي محمد ومالين 4 لباتنكي جانوري لبدا كن يكوي لباتنكا قضبضو بدور قرن وركنا مانتنا وحاكمدا dhammaan xisbiyada siyaasadeed oo dhammaystiray diiwaangelintoodii sharciga ahayd waxaa maanta magaalada Jigjiga lagu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda nabadda ee dawladda federaalka Itoobiya Marwa Mufriyaat Kaamil imika iyo haatan ku soo dhawaada daawadayaal qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan wafdi uu hogaaminayay wasiirka maalgashiga iyo qurba joogta dawladda deegaanka Soomaalida Cabdisalaam oo maalmahan ku sugnaa wadanka Kenya ayaa kula la qaatay qurba joogta deegaanka Soomaalida ee magaalada Nairobi mas'uuliyiinta ayaa la wadaagay fursadaha maalgashi ee ka banaan dawladda deegaanka Soomaalida iyo hanaanka looga gacan siinayo kulankii ugu horeeyay oo looga hadlayay arrimaha maalgashiga deegaanka Soomaalida isla markaasina uu isku soo dubariday xafiiska maalgashiga iyo qurba joogta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsoomi doona magaalada Jigjiga bishan January 25keeda ilaa 26keeda 2021 meeshaasi ayaa mid lagu casuumayo maalqabeennada dalka iyo kuwa wadamada aan jaarka nahay dadaaladan ayaa mid ay xukuumaddu uga ololeynayso sidii loo soo jiidan lahaa maalqabeenno soo maalgashada deegaanka Soomaalida iyadoo ay jirto faa'iido badan oo ay ka heli karaan dhinaca fursadaha maalgashi ee ka banaan deegaanka Soomaalida ayaa mid dihin taas oo maalgashadayaasha ay suurtagal u tahay inuu maalgashi ku sameeyo dhinaca beeraha xoolaha warshadaha halka ay jiraan daraasaadyo badan oo xafiiska maalgashiga iyo qurba joogta dawladda deegaanka Soomaalida ku sameeyay fursadaha banaan taasi oo looga soo jeedin doono kulan weynahaasi maanta magaalada Jigjiga ka furmay qiimeynta waxqabadkii 6 bilood ee gobolada iyo maamul magaalooyinka ee xisbiga barwaaqa laantiisa deegaanka Soomaalida shirkan ayaa lagu qiimeynayaa waxqabadkii 6 bilood ee dhinacyada horumarka adkeynta nabadgelyada midnimada bulshada iyo qodobo kale waxaana ka soo qayb galay dhammaan xubnaha arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xisbiga ee gobolada iyo maamul magaalooyinka dawladda deegaanka Soomaalida qodobada kale inta qiimeyntu socota lagu eegaya ayaa waxa kamid kow dib u habaynta iyo ka shaqaysiinta qaab dhismeedka heerarkiisa kala duwan ee xisbiga 2 abaabulka iyo wacyigelinta xubnaha xisbiga 3 isticmaalka warbaahinta waxaa magaalada Jigjiga saaka lagu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda nabadda ee dawladda federaalka Itoobiya Marwa Mufriyaat Kaamil inta kadib madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiin heer deegaan ah ayaa garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso wasiiradda nabadda dalka socdaalkan ay wasiiraddu ku timid deegaanka oo ay wehelinayaan qaar kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda nabadgelyada dalka ayaa imanaya xilli deegaanka diyaar garoobay shir heer qaran ah oo lagaga hadlayo arrimaha nabadgelyada shirkaas oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiinta hay'adaha nabadgelyada heer qaran iyo kuwa nabadgelyada deegaanada ayaa lagu qiimeynayaa xaaladda nabadgelyada dalka dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee dhammaystiray diiwaangelintoodii sharciga ahayd guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya oo loo soo gaabiyo NEBE ayaa shaaciyay jadwalka qabashada doorashada qaranka ee 6 mid kamid ah howlaha lagu sheegay jadwalka ayaa ah xulashada warqadaha codbixinta ee xisbiyada siyaasadeed oo loo qorsheeyay bisha 13keeda ilaa 24keeda tirsiga Itoobiya iyadoo la raacayo xulashada warqada codbixinta waxaa loo sameyn doonaa sida soo socota kow guddiga doorashooyinka qaranka ee Itoobiya NEBE waxay diyaariyeen astaamo kala duwan oo loo adeegsan karo doorashooyinka wakiilada xisbiyaduna waxay dooran doonaan kuwa ay matali karaan 2 waxay diiwaan geliyeen in astaanta ay doorteen uu leeyahay xisbigooda calaamada uu diiwaan geliyay xisbiga ayaa ka muuqan doonta liiska astaamaha loo doorbido 3 dhinacyada aan ka helin calaamadaha looga baahan yahay guddiga ama raba inay diiwaan geliyaan astaantooda waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda waa inay keenaan astaantooda si ay isu diiwaan geliyaan waa inay ku soo gudbiyaan astaamahooda dijitaalka sida ugu dhaqsaha badan astaantoodu waa inay ahaataa mid madow iyo cadaan ah
calaamadoodu waa inay ahaataa 2 sentimitir. Resolution-ku waa inuu noqdaa 200 ilaa 300 oo pixels. Cabirka faylku waa inuusan ka badnaanin 200 KB. 4 xulashada warqadda codbixinta waxay dhici doontaa laga bilaabo 13 ilaa 18 bisha Tir. Guddiguna wuxuu samayn doonaa baaritaanka iyo go'aan qaadashada inta u dhaxaysa 18 ilaa 24 bishan. 5 doorashada calaamadaha waxaa la qaban doonaa Tir 13 ilaa 18 2013 tirsiga Itoobiya. Xarunta xisbiyada siyaasadeed ee ku taala dabaqa 7 ee ka soo horjeeda guriga daabacaadda Booli saacadaha shaqaalaha. 6 xulitaanka warqadan codbixinta kuma jiraan shakhsiyaad musharaxiin ah. qaabka ay shakhsiyaadka musharaxiinta u doortaan codkooduna guddiga ayaa ku dhawaaqi doona mustaqbalka. wasiirka beeraha dalka Itoobiya Cumar Xuseen ayaa wada hadal la yeeshay maalgeliyaha reer Jabuuti Dhiirre Cali. maalgashadahan oo iskala shirkadda Alvima Food Complex ayaa maalgashi ka sameynaya dalka Itoobiya isla markaana ka helaya sarifka lacagaha qalaad isagoo u dhoofiyay wax soo saarka baastada dalka Jabuuti iyo Somaliland. wasiirka ayaa amaanay doorka maalgashadaha ee abuurista fursadaha shaqo ee Itoobiyaanka ah, bedelida wax soo saarka baastada iyo soo dejinta sarifka lacagaha qalaad. wuxuuna sheegay in labada dal ay si dhow uga wada shaqaynayaan sidii loo sii xoojin lahaa maalgashiga Jabuuti iyo Itoobiya gaar ahaan qaybaha cuntada iyo beeraha. wasiirka beeraha ayaa sheegay in ay dawladdu samayn doonto wax walba oo suurtagal ah si ay u dhiirigeliso maalgashadayaasha noocaas ah. dhinaca kale Dhiirre Cali ayaa dhankiisa bogaadiyay taageeraha dawladda isagoo rajo ka muujiyay in dawladda ay sii wadi doonto taageerida mashaariicda ballaaran ee maalgashi ee ay qorsheynayso inay qabato. guusha shirkadda oo lagu dhisay raasamaal bilowgeedu yahay 20 milyan oo dollar waxay sii dhiirigelin doontaa maalgashadayaasha kale ee reer Jabuuti inay maalgashadaan Itoobiya. intaan marka xigta ku kulmi doona hawada daawadayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaana Allah.